waxaan idinku wargelinaynaa in dhammaan madaxdii loogu talagalay shirkaas inay ka qayb galaan ay haatan magaalada Muqdisho ku sugan yihiin uuna soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Madaxda ilaa haatan soo gaaray magaalada waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda aynu walaalanahay Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. shirkan waa shir muhiim u ah amniga gobolka, waa shir muhiim u ah in wadamada xubnaha ka dalalkan dariska ah ay si qoto dheer uga wada xaajoodaan arrimaha amniga labada dhinac ka dhaxeeya maadaama haatan Soomaaliya ay ka socdaan howlgalo ka dhana qawaariijta. waxaa madaxdu isla gorfeyn doonaan amaba ay isla eegi doonaan ajendayaal ay shalay ansixiyeen wasiirada gaashaandhigga ee dalalkan safka hore oo shalay Muqdisho ku kulmay iyagoo ay weheliyaan taliyaasha ciidamada qalabka sida dalalkooda. marka waa shir runtii yimid waqti loogu talagalay xilli Soomaaliya ay guulo badan ka gaarayso howlgallada ay kula jirto qawaariijta al-shabaab, in caalamkuna uu aqoonsado in guulahani ay waxtar u yihiin amniga gobolka. waa arrin kale muhiim u ah oo siyaasadda iyo amniga Soomaaliya waxtar weyn u leh. waxaa markaa wadamadan ay ku guuleystaan in dhinaca amniga iska kaashadaan ay fursad u siinaysaa in ay diiradda saaraan arrimo kale sida arrimaha dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo arrimaha isdhexgalka bulshooyinka dalalkooda, maadaama amniga uu yahay shuruudda koowaad ee u baahan in la abuuro xasilooni ay dadku wax ku qabsan karaan. intaas markaan uga baxno shir madaxeedka wadamada safka hore maanta magaalada Muqdisho ku yeelanayaan, waxaan guda galaynaa barnaamijkeeni toddobaadlaha oo aynu kaga warbixinaynay howlgalladii socday ee ka dhanka ahaa qawaariijta iyo ajendooyinka kale qaran ee Soomaaliya toddobaadkii la soo dhaafay u hirgalay. waxaa xusid mudan in ay si weli guul ugu socdaan howlgalladii dalka looga ciribtirayay qawaariijta al-shabaab. mid ka mid ah howlgalladaas haddaan xusno waa howlgal ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose oo in ka badan 136 ka tirsan qawaariijta oo ay ku jiraan horjoogayaal lagu dilay, tiro kale oo 100 ku dhowna lagu dhaawacay. howlgal qorsheysan oo ciidanka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ka sameeyeen dhul keyn ah oo ku yaala inta u dhaxaysa Tawakal iyo Garasjeereed oo 12 kiiloomitir galbeed ka jira degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. wararka la xaqiijiyay waxay sheegayaan in qawaariijtu ay doonayeen in ay weerar gaadmo ah ay ku qaadaan dad shacab ay waxyeeleeyaan, balse ciidanka nabad sugidda oo kaashanaya khibradooda iyo rag si wanaagsan ugu xeeldheer arrimaha nabad sugidda ay ka war heleen ama ay heleen xogta argagixisada isla markaasna ay ku baxeen halkaas ay ku laayeen tiradaasi sida aadka u badan ee 136 gaaraya, in ka badan 100 halkaas lagu dhaawacay. Hirshabeelle iyana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah howlgal ay ka fuliyeen, waxa ay beegsadeen 8 ka mid ah qawaariijta oo 2 horjooga ay ka mid yihiin. waxaa xusid mudan in qawaariijta la beegsaday ay markaas ku guda jireen inay lacag baada ka qaataan dad shacab ah, balse xog degdeg oo la helay ciidamadu ku dhaqaaqeen halkaasna ay ku laayeen dhammaan qawaariijtii oo horjoogayaal ay ku jiraan. waxaan uga mahadcelinaynaa shacabka sida dhow ay ula shaqaynayaan ciidamada, isla markaana ay sida degdeg ah xogta ula wadaagayaan ciidamadana waxay aad ugu mahadsan yihiin sida degdeg ay uga jawaabayaan marka ay helaan fariimaha ku saabsan arrimaha nabadgelyada ee lagu badbaadinayo shacabka Soomaaliyeed. dhanka dowlad goboleedka Puntland iyana waxaa ka dhacay howlgal, waxaa halkaas lagu beegsaday mid ka mid ah horjoogayaasha argagixisada oo la yiraahdo Bilaal al-Suudani oo ahaa hogaamiyaha Daacish ee Soomaaliya. howlgalkaas waxaa sidoo kale lagu dilay 10 ka mid ah maleeshiyaad la socday ninkaas la yiraahdo Bilaal al-Suudani oo iyagu marka weerarka u dhacay isku dayay in ay sameeyaan fal is-hortaag ah. dhanka Galmudugna oo hore guulo badan ay ciidamada xoogga dalka iyo shacabku ay uga gaareen, waxa ayana ka soo yeeraya warar aad runtii loogu farxo ah in ciidanku ay la wareegeen deegaano hor leh oo ku yaala halkaas. taasina ay ka dhigan tahay in goordhow deegaanada Shabeelle iyo Galmudug ay noqdaan deegaano xor ah oo aan laga helin amaba ay joogitaan ku leeyihiin maleeshiyaadka ama qawaariijta al-shabaab. dhinaca Jubbaland howlgallo si habsami leh uga socda ayaa iyana ka bilowday. waxa ay ciidamada amniga ee Jubbaland ay si weyn uga shaqaynayaan inay miinooyinka ka saaraan dhulal baaxad leh oo isku xira deegaanada halkaasi si markaasi ay u sahlnaato socodka bulshada. waxaa xusid mudan in qawaariijtu ay halkaasi miinooyin ku aaseen si ay u kala jaraan isu socodka dadka iyo nolosha dadka.
haddaba maadaama gobollada jubbooyinka ay ka mid noqdeen deegaanada cusub ee howlgallada ay ka socdaan waxaan bogaadinaynaa ciidamada iyo guulaha ay haatan gaareen iyadoo la filayo si la mid ah guulihii laga gaaray deegaanada galmudug iyo hirshabeelle in ciidanka amniga ee jubbaland iyo iyaguna ay guulo noocaasi gaari doonaan hadduu la yidhaahdo guud ahaan howlgallada socda waxaa laga gaaray guulo ballaaran iyo dhul badan oo laga xoreeyay khawaariijta toddobaadkii hore waxaan idinla wadaagnay in dhimashada khawaariijta ay gaaraysay in ka badan 320 toddobaadkan ama toddobadii maalmood la soo dhaafay dhimashada khawaariijta kor waxay u dhaafaysaa 200 taasina waxay ka dhigaysaa tirada guud ee laga dilay khawaariijta labadii toddobaad ee la soo dhaafay in ka badan 500 waxaa halkaasi ka muuqda guul weyn oo ay soo hoyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed rajo iyo diilo soo galaysa shacab badan oo Soomaaliyeed oo ah in dhawaan ay maqli doonaan warka farxad badan oo ah in guud ahaanba khawaariijta laga sifeeyay deegaano badan oo Soomaaliya dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre waxa uu soo xiray maalmo dhaweed oo la soo dhaafay shirweyne culimada Soomaaliyeed ay ku yeesheen magaalada Muqdisho shirkaasi waxa uu ka socday Muqdisho intii u dhaxaysay 23 ilaa 26 January 2023 waxaa laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban iyo qodobo lagu taageeray dagaalka khawaariijta ka dhanka ah iyo inaan gabaad iyo macaamiil iyo wada shaqayn midna la siin karin khawaariijta arxanka daran ee shacabka u diiday inay harsadaan ugu dambeynna dhinaca ajendaha qaran isdhexgalka iyo wada shaqaynta Soomaaliya la leedahay dalalka gobolka waxaa magaalada Muqdisho weli si habsami leh uga socda barnaamijka habraaca xaqiijinta shuruudaha looga baahan yahay Soomaaliya inay ku biirto ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika ee East African Community loo yaqaan xubnaha ka socda EAC ama wadamadaasi bariga Afrika ayaa Muqdisho hawshaas u jooga waxayna muujinayaan rajo aad u weyn oo ah in Soomaaliya ay suuragal tahay in sanadkan xubinnimadeeda ay ku guuleysato marka ay dhameeyaan hawsha xaqiijinta ee guddigaasi ka wadaan magaalada Muqdisho waxa ay natiijada u gudbin doonaan shir madaxeedka ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika oo dhici doona inta lagu guda jiro bisha February waxayna noqon doontaa tallaabo kale oo xagga diblomaasiyadda ah ee Soomaaliya markaasi ay ka gaarayso la macaamilka dalalka deriska iyo dunida inteeda kale barnaamijyada ama faa'iidooyinka uu xambaarsan yahay ku biiritaanka ururkan waxaa ka mid ah in lagu xoojiyo diblomaasiyadda dhaqaalaha amniga arrimaha bulshada iyo isdhexgalka bulshada shirkan xaqiijinta ah waxa uu imaanayaa dadaalo badan oo soo socday dhowrkii bilood la soo dhaafay lana filayo in sanadkan laga guul gaaro Soomaaliya ay si rasmi uga mid noqoto urur goboleedkan iskaashiga bariga Afrika oo haatan ay dalal dhowr ah ku jiraan xubnahoodana Muqdisho u joogaan si ay u xaqiijiyaan shuruudaha Soomaaliya looga baahan yahay buuxiso waad mahadsantihiin